بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد الحديث الثالث حديثكي سدحاد وكتابك 40 كمida ayaan meeshan ka guda galaynaa can abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyey cabdullaahi bin cumar bin khadaab radiallaahu tacaala canhu ilaahay raalliha ka ahaada xaggiisa qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu nabiga wuxuu yidhi salallahu waayahay qaala wuxuu yidhi samictu rasuulallaahi rasuulkii alle ayaan maqlay salaallahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay bunayal islaamu islaamkii waa la taagay islaamkii waa la bineeyey islaamkii waa la dhisay calaa 5 5 korkeed ayaa lagu dhisay 5 shay ayuu towxiidku ku taagan yahay sida uu noo sheegay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kan koowaad waxaa weeye shahaadati qirid in la qiro an laa ilaaha alle ila allaahu alla kaloo xaq lagu caabudaa inuusan jirin in la qiro weeye midka koowaad wa anna muxamada nebi muxamedna rasuulullaahi ilaahay rasuulkiisii inuu yahay inaad qirtid shayga koowaad ee islaamnimada aasaaska u ah ee lagu bineeyey ee lagu dhisay ee waxa weeye qof kasta ee muslima ee ragga ee dumara laga rabo waxaa weeye in la qiro laa ilaaha ila allaahu muxamadan rasuulullah ilaahay mooye alla kale ma jiro nebi muxamedna waa rasuulkii ilaahay taas ayaa ugu horeysa midda islaamka uu ku taagan yahay kan labaad waxaa weeye wa iqaami salaati salaada in la oogo waa in 5 salaadood la tukado ee la ammaanay markaas nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii waxaa weeye yacnii salaadu waa acmaasha dhan ee midda hogaamisa weeyuu yidhi nebigu qiyaamahana qofka waxaa laga su'aalhayaa marka ugu horeysa waa ayada maxaa yeelay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi awalu maa yuxaasibu bihi alcabdu asalaat addoonka marka ugu horeysa waxaa la weydiiyaa oo laga su'aalaa salaada ayaa laga su'aalaa wain wujida taama waayahay wasaa'iru camalihi nebigu wuxuu yidhi haddii ay qofku salaadu ay taam u noqoto camalka dhammaantiis waa la raacsiiyaa haddii salaada ay naaqis shay a ku jirana ee naaqistana camalka dhammaantiis waa lagu soo celiyaa marka in la ogo oo lala yimaado arkaanta iyo shuruudda salaada ayada oo la taam yeelhayo ayaa la doonayaa kan saddexaad waxaa weeye wa iitaa'i zakaa sakada in la bixiyo ayaa la doonayaa oo waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka sakada bixiya iyo dadka la siiyo labadaba wuu ammaanay alla subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay muuminka oo fuqarada ayaa ku noolaanhaya oo wuxuay u sahlaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa inuu labanlaabo cibaadadana waxay u baahan tahay sahay ayay u baahan tahay markii adduunka la joogo waxaa weeye kan kalena oo bixinhayo qanigana ilaahay wuxuu uga tirtiraa dembigu uga tirtiraa maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi markuu ammaanahayay sakada qud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim ina salawaatika sakanun lahum ayuu yidhi ilaahay wallaahu samiicun caliim aayaddaas fii suurati tawba ayuu ilaahay ku ammaanay warqaada oo maalyaalkiinna sadaqa ka qaada aad waxa weeye ku dahiraysaan naftiinna dembigan aad uga dahiraysaan waayahay wa tusakiihim bihaa
wasalli calayhim ina salawaatika sakanun lahum. haddii markii waxaa weeye dembigaaga lagu dahiro qofka bani aadamka waxaa weeye wuxuu helahayaa xasilooni joogtaa ayuu helahayaa markaas, oo waxaa weeye maalkiisa ayaa ilaahay barakaynahayaa. haddii ilaahay kuu roon yahay sadaqana wuxuu yidhi nebigu ma nusqaamisa maal markaas ilaa inay badisa mooye. kan afraad oo ka mida waxaa weeye diini islaamka waa xajul beyti, beytka alle in la xajiyo ayaa la doonahayaa. beytka alle, beytkaas ilaahay subxaanahu wa tacaala ee xaramka ee xajka inaad soo xajisid haddii ilaahay maalku siiyo ayaa la doonayaa. maxaa yeelay qof kasta ee muslima ee mu'mina ee waxaa weeye raga ee dumara ee ilaahay wax u dhiibay waxaa waajib ku ah inuu soo xajiyo ayaa waajib ku ah. shuruudaha laga doonahayo waxaa ka mida maalkiisa inuu yahay kasab oo xalaala. marka uu xajka aadahayo waalidkiis, awlaaddiisa, xaaskiisa iyo waxaa weeye dadka uu mas-uulka ka yahay wax ku filan in ay haystaan ayaa la doonayaa. kan waxaa weeye nabiga wuxuu noo sheegaa calayhi salaatu wasalaam xajku ama waxaa weeye salaadaha lagu tukado in ay barakaysan yihiin, salaadaha kalena ay ka fadli badan yihiin kana ajar badan yihiin. maxaa yeelay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii xajka ku tukada yacnii hal duhur ama hal salaad ku tukada waxay u dhigantaa 100,000 oo salaadood oo masaajidada kale iyo carada kale ee ilaahay ku tukada ayay u dhigantaa 100,000 oo salaadood. wax cayaara ma ahan. wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xaramka ninkii ku tukada masjidu rasuulilaahi ayaan dhihi lahaa waxay u dhigantaa 1,000 salaadood oo meelaha kale lagu tukado. nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam sidoo kale qofkii ku tukada baytalmaqdis waxay u dhigantaa 500 oo salaadood oo masaajidada kale iyo carada kale aad ku tukatid markaas. sidaas ayuu xaramku wuxuu yahay markaas iyo meelaha qaaliga ee waxaa weeye acmaashoodu waxaa weeye 100 ay ka badan tahay meelaha kale. 100,000 oo salaadood oo xaramka aa ku tukatid ayaa waxay u dhigantaa ama ay ka badan tahay cimri lagu siiyey 1,000 sannadood oo carada kale aa salaada ku tukanaysay. kan ugu dambeeya waxaa weeye wa sawmu ramadaana, ramadaanka in aad soontid weeye midka ugu dambeeya. bisha ramadaan inaad soontid yacnii ramadaanka waxaa weeye isagana waa la ammaanay. maxaa yeelay wasawmi ramadaana ayuu yidhi ilaahay ramadaanka sooma. in badan ayay axaadiista iyo qur'aanku ka hadleen ramadaanka. waxaa lagu farad yeelay ummadihii annaga naga horreeyey ayaa lagu farad yeelay, sida ilaahay suuratulbaqara ku yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacalakum tattaquun. wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ordadow kuwii ilaahay iyo rasuulka rumeeyow waxaan idinku farad yeelnay ramadaanka ayaan idinku farad yeelnay sida aan ugu farad yeelnay ummadihii idinka horreeyey. haddii aad ramadaanka soontaan waxaa xaqiiqaa in waxaa weeye la idiin dhaafayo ee aad cabsanaysaan ayaa xaqiiqahu yidhi allah subxaanahu wa tacaala. marka bisha ramadaan waa bil qiimo badan. waxaa weeye sanadkiiba hal mar ayay soo noqotaa. waxaa intaasi ku soo gabagabaynaynaa xadiiskii haddii ilaahay kuu roon yahay saddexaad oo kitaabka arbiciinka ka mida. wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. الحديث الثالث xadiiskii saddexaad oo kitaabka arbaciinka ka mida ayaan meeshan ka gudagalaynaa. can abi cabdiraxmaan waxaa laga wariyey cabdullaahi bin cumar bin khadaab radiallahu tacaala canhu, ilaahay raalliha ka ahaada xaggiisa. qaala wuxuu yidhi, qaala nabiyu nabiga wuxuu yidhi salallahu waayahay, qaala wuxuu yidhi samictu rasuulallaahi rasuulkii alle ayaan maqlay salallahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay, bunayal islaamu, islaamkii waa la taagay, islaamkii waa la bineeyey, islaamkii waa la dhisay, calaa kamsin 5 korkeed ayaa lagu dhisay. 5 shay ayuu towxiidku ku taagan yahay sida uu noo sheegay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam. kan koowaad waxaa weeye shahaadati qirid, in la qiro an laa ilaaha alle ila allaahu, alla kaloo xaq lagu caabudaa inuusan jirin, in la qiro weeye midka koowaad. wa anna muxamada, nebi muxamedna rasuulullaahi, ilaahay rasuulkiisii inuu yahay inaad qirtid. shayga koowaad ee islaamnimada aasaaska u ah, ee lagu bineeyey, ee lagu dhisay, ee waxa weeye qof kasta ee muslima, ee ragga ee dumara laga rabo, waxaa weeye in la qiro laa ilaaha ila allaahu muxamadan rasuulullah, ilaahay mooye alla kale ma jiro, nebi muxamedna waa rasuulkii ilaahay. taas ayaa ugu horeysa midda islaamka uu ku taagan yahay. kan labaad waxaa weeye wa iqaami salaati, salaada in la oogo, waa in 5 salaadood la tukado ee la ammaanay. markaas nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, qofkii waxaa weeye yacnii salaadu waa acmaasha dhan ee midda hogaamisa weeyuu yidhi nebigu. qiyaamahana qofka waxaa laga su'aalhayaa marka ugu horeysa waa ayada, maxaa yeelay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi, awalu maa yuxaasibu bihi alcabdu asalaat, addoonka marka ugu horeysa waxaa la weydiiyaa oo laga su'aalaa salaada ayaa laga su'aalaa. wain wujida taama, waayahay wasaa'iru camalihi, nebigu wuxuu yidhi, haddii ay qofku salaadu ay taam u noqoto, camalka dhammaantiis waa la raacsiiyaa. haddii salaada ay naaqis shay a ku jirana ee naaqistana, camalka dhammaantiis waa lagu soo celiyaa. marka in la ogo oo lala yimaado arkaanta iyo shuruudda salaada ayada oo la taam yeelhayo ayaa la doonayaa. kan saddexaad waxaa weeye wa iitaa'i zakaa, zakada in la bixiyo ayaa la doonayaa. oo waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka zakada bixiya iyo dadka la siiyo labadaba wuu ammaanay alla subxaanahu wa tacaala. maxaa yeelay muuminka oo fuqarada ayaa ku noolaanhaya oo wuxuay u sahlaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadadiisa inuu labanlaabo. cibaadadana waxay u baahan tahay sahay ayay u baahan tahay markii adduunka la joogo. waxaa weeye kan kalena oo bixinahayo qanigana ilaahay wuxuu uga tirtiraa dembigu uga tirtiraa. maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi markuu ammaanahayay zakada, qud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tusakiihim biha wasalli calayhim ina salawaatika sakanun lahum, ayuu yidhi ilaahay, wallaahu samiicun caliim. aayaddaas fii suurati tawba ayuu ilaahay ku ammaanay.